إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة العزاء weli waxaan ugu jirnaa muxaadarooyinkii aan uga hadlaynay masaa'il ku saabsan soonka muxaadaradan insha allahu tacaala waxaan uga hadli doonaa qayb noogu dhinneeday leylatul qadriga sidoo kalena axkaamu zakaati alfidri zakada la bixiya soonka marka uu dhammaada axkaamta ay leedahay muxaadarankii ka horreysay ayaan qayb ka mid aan ku soo aragnay oo ku saabsan leylatul qadriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray markii la gaaro 10ka dambe ee bisha ramadaan masaajidka uu ku ictikaafayay wuxuuna dhahayay leylatul qadriga karaadiya 10ka dambe ee bisha ramadaan riwaayadaha ku soo arooray leylatul qadriga inta ugu badan waxay ka hadlaan in 10ka dambe ay ku jirto leylatul qadriga saadarta la doonayo 10ka dambe leylatul qadriga in laga raadiyo gaar ahaan habeenada watirka ah sida 22ka 23ka 25ka 27ka iyo 29ka waxaa ugu raajaxsan uguna xoog badan leylatul qadriga horta inay ku kooban tahay 10ka dambe ee bisha ramadaan 10ka dambena waxaa laga sii raadinayaa habeenada watirka ah saan horeba usoo sheegnay inkastoo aan la dhihi karin habeen gaar bay ku jirtaa ibnu xajar al-casqalaani raxmatullahi calayhi fii fatxulbaariga wuxuu ku yidhi wahada aladii yadullu calayhi majmuucu alakhbaari alwaaridati fiiha arrinkan leylatul qadriga inuu ku jiro 10ka dambe bisha ramadaan gaar ahaan habeenada watirka ah axaadiisu ku soo aroortay ay arrintan tusinayso wa qaala wuxuu yidhi ibnu xajar qad ikhtalafa alculamaau fii leylati alqadri ikhtilaafan kathiira culammada aad bay isugu khilaafeen arrinta ku saabsan leylatul qadriga khilaafkii culammada waxaa nooga soo dhexbaxay buu yidhi ilaa 40 qowl baa noogu soo dhexbaxday kadibna ibnu xajar raxmatullahi calayhi 40kii qowl ayuu tixay kadib baa wuxuu yidhi وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير وحراجح إنها كجرت ليلة قدرها 10ka dambe ee bisha ramadaan gaaraan habeenada watirka ah waxaa kaloo fahmay xadiis ku soo aroortay leylatul qadriga in ay leylatul qadri isbadbedelayso oo haddii ay noqoto sanadkan 22 23 ay u guureysaa 25 bay u sii guureysaa 27 29 waxaana lagu rajeyn og yahay buu yiri 10ka dambe ee bisha ramadaan habeenada watirka oo ku jiro shaafici marka ayaga waxay yiraahdeen waxaa fiican in laga raadiyo habeenka bisha ramadaan ay tahay 22 ama 23 22 ama 23 baa laga raadinayaa jumhuurul culamaa waxay yiraahdeen buu yiri 27ka baa laga raadinayaa ibn xajar al-casqalaani inta si fiican buu hadlay sidoo kale waxaa hadalka soo naqlinaya saaxibu tuhfatil ahwadi ee sharxay tirmidiga ama sunanka tirmidiga sharxay waxaan leeyahay marka leylatul qadriga waxa weeyaan walaalayaal waxay leedahay yaani fadli fara badan waliba waxay ku jirtaa 10ka dambe si aan arkeyno waxaan naga la doonaa walaalayaal inaan ka faa'iideysano calaamada ay leedahay baa jirta leylatul qadriga oo lagu garto haddii aan wax ka sheegno waxaa kamid ah calaamadaheeda waxa la yiraahdaa habeenka leylatul qadriga ay tahay maalinteeda qoraxdu waxay ku soo baxdaa iyadoo cad oon shucaac lahayn ilaa ay ka kor noqonayso waana calaamada ugu cad uguna muuqata baa la yiri calaamad badan bay leedahay oo yaani maragtay habeenkaasi in jawiga degan yahay habeenkaasi dameer yeer ama yaani maragtay yeer inaan la maqlaynin wax yaani roob amal inuu soo da'aya waxyaabo fara badan baa la sheegay xadiis arinta tusinaysa baa jirto inkastoo culimada muhaddisiin ay leeyihiin xadiiska tusin leylatul qadri calaamado badan in leedahay dacfi baa ku jira bay leeyihiin laakiin waxa la doonayaa in laga raadiyo 10ka dambe waliba habeenada watirka lana dadaalo habeenadaasi tahajjud iyo alla bari iyo cibaado lagu jiro baa la doonayaa waxaan leeyahay marka gabagabada waxa wanaagsan 10ka dambe ee bisha ramadaan cibaado in lagu dadaalo alla bari in lagu dadaalo oo salaad lagu dadaalo quraan akhris lagu dadaalo culimadu waxay yiraahdeen yustahabu ihyaa'u layali al-ashr bil cibaada 10ka dambe ee bisha ramadaan la gaaro waxa la doonayaa in habeen lagu nooleeyo cibaado iyo wal hirsu ala mudawamati al-qiyam fiha in lagu dadaalo habeenka in la taagnaado iyo wal ikthaaru min ad-du'a alla bari in la badiyo وأمر الأهل بالاستكثار من الطاعة فيها إهل كذا إن الفرطه هبينا ذاسي إن أي بديان عبادة يسوجد كي الله بريء مركب طبعا كذا بشهر رمضان وفرصة قالئة
haddii ay dhacday mar inaad kusoo marto mar labaad inaan kusoo marin baa dhici kartee ka faa'iidaysa marka ay kusoo marto ee 10ka daba bisha ramadaan hal ugu dadaalo cibaadado dadkan ayaan tashwiish laga gelinin 10ka daba in ay dadaalaan oo cibaado u soo jeedaan oo alla ay baryaan maxay rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam saan horeba u soo sheegnay habeenkaas oo dhan buu noolay jiray maadaama rasuulka kaleeyhi salaatu 10ka habeen oo ugu dambeeyay bisha ramadaan oo dadaali jiray oo noolay jiray anagana waxa naga rabaa nabiga inaan ku dayna kaleeyhi salaatu wasalaam 10ka daba aan noolayno quraan akhris iyo tahajjud iyo cibaadi alla bari aan ku soo jeedna wala doonay walaalayaal haddii aan inta ugu gudbo leeyahay qadigi iyo wixii ku saabsanaa waxaan u gudbaa qaybtii labaad ee muxaadara ugu hadlaynay ee ah ahkaamu zakaat al-fitr zakaat al-fitr ahkaamta ay leedahay zakaat al-fitr walaalayaal waxa la jidiyay sanadii labaad ee hijrada waana sanadii ramadaanka la jidiyay zakaat al-fitriga iyo zakada maalka laga bixinayo iyo soonkaba waxa la jidiyay sanadii labaad ee hijrada in ay mashruuc tahay oo la jideeyay zakaat al-fitriga waxa tusinaya sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ahadiis farabadan arinta tusinaya ayaa jirto waxa kamid ahadiisaasi hadiiskii Abu Sa'id al-Khudri ta'ala anhu waradahu oo wariyay ee uu yiri Abu Sa'id al-Khudri kunna nukhriju zakat al-fitr id kana fiina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxaan hajarnay ko zakaat al-fitriga bixiye xilligii nabiga uu nala joogay sallallahu alayhi hadiiskan waa imaan doona insha Allah ta'ala waana hadiis sahih Muslim ay soo saaray حديث كله كسو أرورتي أو توصين زكاة الفطر إني مشروع تاي وحاكمه ده حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس وحيري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الفطر رسولك عليه الصلاة والسلام فرض يلي زكاة الفطر زكاة الفطر حديث كان وصحيح بالداود غير كياسو صاري أحاديث بن باكسو أرورتي ومركي دمانتو لسوق كان فائدين إن صدقة الفطر أي واجب تهاي قفك الصوم مسلمين وبحين وحلقة دونك مسلمين زكاة الفطر نسك بحيان waxa la isweydiin karaa maxay tahay xigmada ku sugan oo loo jideeyay zakaat al-fitriga walaalayaal zakaat al-fitriga waxa loo jideeyay xigmooyin aad u fara badan waxa kamid ah xigmooyinkaasi jubraanu naqsi as-sawmi soonka nuqsaanta ku timid in la kabayo wuxuu nabiga yiri zakaat al-fitriga duhratun lis-saa'imi min al-lagwi war-rafath zakaat al-fitriga waxa weeyaan qofka sooman ay dhahirin u tahay waxayna ka dhahirinaysaa hadalka uu ku hadlo maalayacniga iyo afxumada ka timiday حديث كان واسع أبي داود غير كي صاري أهل العلم يقاركود وحي هذين زكاة الفطر كسجة السهو زكاة الفطر وحي لمتها هي سيدة سجود السهو صلاة ماشي أجوكته أو محار دعي سجود السهو صلاة نقصان كنت متبالغو كبا صومهن زكاة الفطر وحي كبيسا صون كوحي النقصان هو سوق جاري وحاكا لو كمية حكمة الوجه زكاة الفطر إغناء الفقراء ذلك الفقراء أن لقد ديقه oo su'aasha ay weydiisanayaan iyo maalintaasi tugsi ay galayaan in laga kaafiyo maxaa yeelay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri du'matun lil masaakiin waxyaabo loo jeedo waxa weeyaan masaakiinta in la quudiyo marka dadka fuqarada ah dhibaatada haysato oo la deeqana waxay kamid tahay waxyaabihii shariicada ka ugu yeertay wali waxay kamid tahay waxa loo yaqaan kulliyatu shariica shariicada macnaha kulliyadkeeda bay kamid tahay sidoo kale maqaasidu shariica bay kamid tahay marka waxa la doonayaa dadka baahan maalintaasi in la kaafiyo la doonayaa xukunka ay leedahay zakaat al-fitriga muxuu yahay zakaat al-fitriga waxay ku waajibtaa qofka soo muslim ah rag iyo dumar wuxuu doona ahaado saqiir ama kabiir ahaado qof aqli leh qof waalna ahaado waxaana tusin arintaasi xadiiska Abdullah ibn Umar ta'ala anhuma Abdullah ibn Umar wuxuu yiri farada rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulka wuxuu farad yeelay zakaat al-fitri afurka zakadiisi من رمضان marka laga afuro صاعا من تمر سوس تمر أو صاعا من شعير سوس قمدي على العبد أدونكي والحر كي حركها والذكر منك لبكها والأنثى ديديكي والصغير كي يرى والكبير كي ويناء من المسلمين تكمدا حديث كان البخاري مسلم يسوع صاري ابن مدر وحيري أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض وحيكون إجماع مويري ذاتك أهل العلم أن حقه وح كحفظني إن صدقة لبحية صونك مركو دماداي إن أي تهي فرض إسحاق بن راهويه وحيري هو كالإجماع من أهل العلم أهل العلم مركي لفيرية إجماع بأرنتا سيكويهين بويري شروط من لا هي زكاة الفطر لبا الشرط باي لا هي شرط كواد وحويان الإسلام قفك الزكاة بحين مسلم هي محايلي قف قال الزكاة لغا أقبل مايو الله جل جلاله وحيري وما منعهم مديد أن تقبل منهم نفقاتهم نفقوا لا أقبل وحي أي بحيان لا أقبل لمديدين إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وحاويان ذاتكو قالوا بي الله رسول كيس مر هدي ذاتك الله رسولك يكو قالوا بان وح عباده لا أقبل يا مجرته صدقك سوي بحيان
wanaagso ay bixiyaan marka zakatul fitr waxay kamid tahay waxyaabaha loo shardiyay qofka bixinaya inuu yahay qof muslim ah shardiga labaad waxa weeyaan alqudratu calayha qofka inuu karo zakatul fitr inuu bixi karo karida maxaa laga wadaa waa inuu haystaa habeenka ciida iyo maalinta ciida intuu cuni lahaa asiga iyo ilmihiisa iyo cid kasto inuu bil waajib ku tahay wixii cuni lahayn wax ka dheeri waa inuu haystaa sidoo kale baahida asaasigeeda wax ka dheeri waa inay haystaan sida waxay cunaan ama waxay cabaan ama guri ama maxaan ku yiraahdaa dharka xiri lahaayeen wax ka dheeri waa inay haystaan marka haduu qofka uu karo ayaa zakatul fitr laga rabaa haduusan karin waxa weeyaan waajib kuma ahan waxayna ku waajibaysaa qofka waalidka wax dhalay canuga yar oo saqiirka inuu zakada ka bixiyo haduusan maal lahayn canug yar oo saqiir oo maal lahayn inuu zakada ka bixiso waajib ku ah hadii maal uu leeyahay maalkiisa laga saaraya macnaha oo marka aabaha in maalkiisa laga saarayo waajib ma aha say culimadu qabaan waana sida saxiixa weeyaan jumhuur culimadu waxay leeyihiin zakatul fitr waxa laga bixinayaa qof kasta oo inaad biisha ay waajib kugu tahay qofka adiga inaad biisha ay waajib kugu tahay in zakada aad ka bixisaa waajib weeyaan waa sida ay qabaan jumhuur culima dadkaas waxa kamid ah xaaskaada waalidiinta adiga ku dhalay waxa laga rabaa marka inaad ka bixiso dadka adiga inaad biisha ay waajib kugu tahay inkastoo culimada qaar ay leeyihiin zakatul fitr in laga bixiyaa waajib ma ahan haweeneyda adiga aad qabto oo in iska bixista la rabaa taasi culimada qaar ayaa qaba laakiin si raajax waa sida jumhuur culima ay qabaan qof kasto inaad biisha ay waajib kugu tahay inaad zakada ka bixisa laga doonaya xitaa qofka adiga ku shaqeynayay qofka adiga shaqaalaha ku ahaa ku shaqeynayay ee gurigaada ka cunteeyay waa gabadhii ku khidmeynaysay ama qofkii guriga ka shaqeynayay waxa la rabaa in adiga zakatul fitr aad ka bixiso goorma ay waajibaysaa zakatul fitr in la bixiyo zakatul fitr in la bixiyo waxay waajibaysaa markii bishii ramadaan ay dhamaato oo markay qorax dhacdo la arko bishii shawaal in ay dhalatay markaas ay zakada in la bixiyo waajibaysaa qofkii marka kamid ah dadka zakada ku waajibaysaa xilligaas inuu bixi waajib ku tahay haduusan dadka inuu bixi waajib ku tahay kamid aheynana waajib kuma ahan hadii ay dhacdo qof inuu dhinto qorax intaysan dhicin ka hor zakada kuma waajibayso sidoo kale haduu dhinto qof markay qorax dhacdo ka bacdi zakada way ku waajibaysaa sidoo kale qof gaal haduu islaamo qorax markay dhacdo ka bacdi zakada kuma waajibayso intaysan qorax dhicin ka hor haduu islaamana zakada way ku waajibaysaa haday dhacdo inuu canug ku dhasho qorax markay dhacdo ka bacdi zakada ku waajibayso laakiin waxa sunnah inaad ka bixiso canugu ku dhasho markay qorax dhacdo ka bacdi zakatul fitr ka bixiso waajib kuma ahan waxa sunnah inaad ka bixiso waqtiga ugu fiican in zakatul fitr la bixiyo waxa ugu fiican zakatul fitr in la bixiyo maalinta ciida subaxdeeda inta salaada la aadin ka hor waxaana taalu dilisana hadalkii uu yiraahday Saciid al-Khudri ta'ala anhu waradahu Abu Saciid al-Khudri wuxuu yiri kunna nukhriju fi ahdi Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam xilliga nabiga alayhi salatu wasallam waxaan bixi jirnay yawm al-fitr saa'a min ta'amin hal sus oo raashin ayaa maalinta ciida aan bixi jirnay marka waxa maalinta ciida in la bixiyo baa la doonayaa laakiin waxa banaan in laga hormariyo maalinta ciida maalin ama laba maalmood ka horeeyo si aad fursad u hesho taasna waxa tusinaya xadiiska Abdullah ibn Umar ee uu soo saaray Imam Bukhari Abdullah ibn Umar ta'ala anhu wuxuu ahaan jiray zakatul fitr uu bixin jiray maalin ama laba maalmood ka hor ayuu bixin jiray taan way banaan tahay waxaase banaaneen in maalinta ciida dib loogu dhigo hadii cudurdaar qofka uu saaysan qof aan cudurdaar haysanin maalinta ciida inuu zakatul fitr ka daba mariyay arintaas ma banaan walaalayaal hadii uu ka daba mariyo cudurdaar la'aan zakadaas laga aqbali maayo maxay yeelay rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man adaaha qabla salati fa zakatun maqbula qofkii salaada ka hor bixiyo waa zaka laga aqbalahayo waman adaaha ba'da salati fa sadaqatu min as-sadaqat salaada kadib qofkii bixiyana waa sadaqooyin kamid ayuu nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam وعدي سعيد بدوي غير كيا سو صاري اما hadii qofkii dib u dhigo zakatul fitr bixinteedii maalinta ciid uu bixin lahaa ay maalin kale ku qaadato asuudu daar hayso waqti ciid ku noqday ama fursad uu ku bixiyo waayay ama xitaa waqtigii ciid uu soo gaaray ayaaba hadda noqday oo wuxuu arkayba xilligii salaad lagu jiro wuxuu arkay idoo salaad lagu jiro oo salaada maxay tahay maanta waa maalin ciid ma ogid maaleeyay inuu bixi marka qofka noocaas way u banaan tahay nooca la bixinaya waxa weeyaan magaalada adiga aad ku nooshahay raashinka ugu badan ee laga cuno taana waxa daliil ah xadiiska Abdullah ibn Umar ta'ala anhuma Abdullah ibn Umar wuxuu yiri farada Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitr rasuulka alayhi salatu wasallam wuxuu farad yeelay zakatul fitr wuxuuna farad yeelay suus timir in la bixiyo ama suus qamad in la bixiyo qamadiga ama shaciirta maalintaasi waxay aheeday raashinka ay cunayeen marka waxa la doonayaa in aad bixiso cunada laga cuno magaalada aad ku nooshahay midda ugu badan baad bixinaysaa Soomaalidu waxa ugu badan galeyda bariiska digirta iyo maxaan ku yiraahdaa masagada kulli waa la cunaa Soomahan zakatul fitr way ku ansixaysaa in la bixiyo qadarka la bixinaya marka waxaan hadda sheegnay
sida xadiisku tilmaamay saacan min da'amin sus raashina suska muxuu yahay suska wuxuu noqon karaa qadar ahaan 2 kiilo iyo 40 garaamo waa burka zakaat fitr lagu bixinayo burkan ma aha midkan carabi waxa loo daqiiq baa la yiraahdaa dadku way isku khaldaan kan bur lama yiraahdo midka canjarada iyo rooti laga sameeyay ma aha bur waxa la yiraahdaa daqiiq af carabiga burka waxa weeyaan waa nooc qamadiga oo kala oo maxaan ku dhahdaa sarreyn baa la yiraahdo weeyaan kaas oo kale markuu yahay 2 kiilo 40 garaam ama 2 kiilo bar baa la bixinaya waxa zakaat fitr lagu bixinayo waa 2 nooc waa wax la beega noocna waa la miisaamaya nooca la beega waxa la bixinaya sida fiican waxa weeyaan 4 madaal oo bahasha naarijiinka ama saliid qumbaha lagu keena mid weyn gasaca weyn saliid qumbaha 4 madaal oo kamid ah bixinaysa wax la beega hadayhiin wax la miisaama hadayhiinna 2 kiilo iyo bar ila 3 kiilo waliba 3 kiilo si gaarsiisa ayaa fiican yaa la siinaya waxa la siinaya zakaat firiga dadka fuqarada ay dadka baahan al fuqara wal masaakin ayaa laga siinaya 8 nooc ee dadka zakada laga sii jiray waxa banaan walaalayaal hal faqiir inaan isugu geeyno zakadeen aniga 10 qof ama ka badan ah inaan zakadeen aan ururino oo hal miskiin aan siinay way banaan tahay saadarta marka way banaan tahay ardada quraanka dhigataay zakadooda in la isugu geeyo la siiyo macalinka way banaan tahay taasina waxaana fiican in la siiyo dadka qaraabada zakada hada bixinayso waxa fiican dadka qaraabada xigtada inaad siiso maxaa yeelay laba faa'iido ku jirto sadaqana way ku tahay qaraabo xiriirina way ku tahay ma la bixin karaa qiimo zakaat firigi intaan qiiman 4 madaal ee galeyda aha ama 3 kiilo bariiska aha ama 3 kiilo timirta aha inaan qiimeeyno qiimahan ma bixin karnaa sida raajixa waxa weeyaan qiimo lama bixin karo maxaa yeelay xilligii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam qiimo lama bixininin in qiimaha la bixin karana culimadeena hore qaar kamid ah qabo sida Abu Hanifa wuxuu leeyahay qiimo waa la bixin karaa culumada mucaasiriinta qaar kamid ah qabo sida Dr. Yusuf al-Qardawi iyo culimo kale waxay leeyihiin ayna waa la bixin karaa qiimaha laakiin sida raajix waxa weeyaan sida sugnaatayo xilligii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waxa la bixin jiray raashin baa la bixin jiray raashinkum baa la bixinaya maxaa yeelay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ma dhihin qiimo waa la bixinaya wixii xilligii salafka la bixin jiray ayaa fiican in la bixiyo waxa leeyahay marka walaalayaal zakaatu firiga hala bixiyo wajka mashruuc oo sharci islaamka oo amrayna hala ugu bixiyo baan leeyahay hada wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh